gabdhaha walaalay la igula taliyay inaan banaanka iska keeno cunigaas jaceylkiisana muxuu ii tarayaa cunigaasga ana cag uma dhigi banaanka keene waa dilay maxaase yeelay hadda aniga familkayga uma sheegi kari waayo maanta gabar la tirsanaayo oo ninka asaga kitaab quraan aan ku dhaariyay muxuu asaga saan ii galay maxaa sameynaa marka wallaahi qisada iigu xanuunka badneed oo isoo martay nin ay soo mariyay waayo nina dhowr sano aan sheekaysanaynay ayaa ismaalinta dambe waa ismehersanay ninka asaga ahay uuran u yeeshay wuxuu yidhaa 4 bilood bes aan kala maqnaanaynaa bes ninka asaga ahay maalinta ugu dambeysay oo uurka igu soo baxay waa u sheegay waayo waxaan dhalaalo intaasaa uurka muxuu ahaa wuu soo baxay adigaana saan yeelay muxuu ahaa inaa waxaa rabaa aad ciddanada aad iila hadasho ood arrintan aad igu qarinin oo arrintan cunug adiga dhasho xalaal waaye aad igu inkirnaa rabaa ninka asaga ahaa wuxuu yidhahay 2 isbuuc kadib waa kula soo hadlayaa 4 biloodna lama gaarin waqtiga meherka wax yar waaye walaa dee arrinta kugu soo baxeen aniga insha Allah wax dhan soo hagaajinaa hay waayaan dhahay faraha ka qaaday 2 bari kadib haddana waa wacay markaasuu dhahay ani ma dhalin cuniga asaga ahaa miyaadan hadda qof muslim ahayn oo ana wax kale kuma aaminin kitaab quraan oo iigu dhaartay kitaab quraan aan ku aaminin waayo hadda ka hor waxaan soo xasuustay nin aan la sheekaysanayo uu dhahay aan ismehersan markaan dhaanay oo aniga waalidaan i dhalay waalidkana inay iga soo doonataa ka jeclahay markaasuu dhahay maanta waa u jeedaaye anigoo hadda kitaab quraan aan ku maraynin oo walaaltinimada ay naga dhaxayso oon kuu soo shaqaysanaa aad dhahday ayaa meher iga diiday laakiin maalin oo uur lagu yeelo oo lagu mehersado oona muxuu ahaa lagu inkiro aan arki doontaa habeen walba markaan seexdo waxaan soo xasuustaa wiilkii hadalkiisa qisada igu xanuunka badneed oo igu dhacday arrintaas ay ahayd ladeed wallaahi hadda dadaa u sheegay ma jiraan dadna waa dad qaasna waa u sheegtay familkayga dhexdiisa cuniga asaga ana cag uma dhigi banaanka keene waa dilay maxaase yeelay hadda aniga familkayga uma sheegi kari waayo maanta gabar la tirsanaayo oo ninka asaga kitaab quraan aan ku dhaariyay muxuu asaga saan ii galay maxaa sameynaa marka arrintan saamaha asaga inay gaarto waa jeclaan lahaa kitaab quraan uu ku dhaartay kitaabka quraanka ahaa waa nin awlaad dhalay kitaabkaas quraanka inuu ilaahay iiga soo saaro dhaarto ii maray waa jeclahay oo calaamad lala yaabo ay muslimka dhan wada fiiraan inuu ilaahay iiga soo bixiyo waa rabaa gabdho badan wiilal badan ay la ogaay waa familkanaga waa qof kala saaxiib anigu uma sheeganin wiilkaas ama buucin baa aniga lambarkiisa balaaga iska saarsan maaha waayo aduu cunigiisaba inkiray muxuu ii qabanaa aniga jaceylkiisana muxuu ii tarayaa ma cafinay mar aan cafinayna ma jirto aakhiri adduun waa u haystaa midaas waayo waa ogahay taas xaqiiqo taas dhibi haysto wahay dhib aan muxuu ahaa oo familkeen li hor iimaani karnay ahayd waa ilaahay dambi dhaaf weydiisana insha Allah inuu ilaahay ii dambi dhaafo waa naf aad dilo waa ogahay waayo wallahi waa ismehersanay asaga waa ismehersanay loo qof hadda meel inaa wada tagtay oo muxuu dad qaarna ay og yihiin qaraawada oo ismehersataan ahayn waayo hadda walaalahay qaar joogeen muxuu aabahay waa joogaa hooyo joogto see ku soo bandhigi karaa marka arrinta awalka hore waa qarsataa lidhaa soo maaha may 2 bilood bar wahay cuniga asaga ahaa may asiga hadduu saa dalbado uma soo jeeda hadda jaceylkiisana waa iska xire baabkiisa soo maaha waayo wuxuu igu dhigaa ogahay wuxuu qalbi xanuun oo isoo mariyaa ogahay wuxuu hurdalaan igu ridaa ogaa asagana uu iska raaxaysanayay aan oga soo maaha